maanta waxaa la sheegayaa in wasiirro badan iyo xildhibaano ay soo baxayaan bal uma quuraan lacagta ay ku bixinayaan diyaaradaha iyo dadkan inay ugu deegaan agoomihii laga dhintay ama dadkii dhaawac ahaayo isbitaallada yaalay marka ilaahay tawfiiqdu seejinaya waan u malaynayaa dowladda federaalka ah waxaan leenahay war maskaxdiina soo celiya oo dadka sida habboon ha loola dhaqmo annaga dowlad goboleedkii caasimaddii baan joognaa madaxdii baa joogta cid walbaa joogta ayadoo aan nala soo xiriirin in maalin walba dad inta diyaarada loo saaro albaabkii oo caasimadda meeshii iyo dowlad goboleedka laga soo geli lahaa darishada laga soo geliyaa maanta caawudaaqay caadaday ka degayaan baa la sheegayaa kuwa kale maalmo hore meeshay ka degeen waa la ogaa anigu waxaan leeyahay dowladda federaalka waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa beesha caalamka u sheegaynaa annaga hantidaeedii waana la kacuna qabateeyey wax alaaliyo wixii booliis iyo aan ku adeegsan lahayn waana la ka xiray labada gacmood iyo labada lugood baan ka xirannahay fidnadaas iyo dhibaatadaas ayaa maalin walba nagu socota